Hello you guys. haddii ay subax ku tahay subax wanaagsan aan bartaada kugu leeyahay, haddii ay galab ku tahay galab wanaagsan aan bartaada kugu leeyahay, haddii ay habeen ku tahay habeen wanaagsan aan bartaada kugu leeyahay. dadku kaliya kuma noola Muqdisho oo ah Soomaaliya, sidoo kale shanta qaarad ee dunida ku nool yihiin. Soomaali waa dad badan meel walbo oo qaaradaha dunida dad baa naga joogo, waan tirsaneynaa ma tira koobna laakiin waa xisaabsanoona maskaxda ku heysana. maanta sir baan idin wadaa, sir dhowr mar waxaan idin soo duubay muuqaalo sheekooyin ah. hadda ka hor waxaan idin soo duubay muuqaal ku saabsan sida miisaanka loo dhimo, waxaan idin soo duubay muuqaal ku saabsan sida caloosha loo yareeyo. qoraal ahaan ayaan idin kugu soo dhigay laakiin cod baan idin soo saaray. dad badan baa ka faa'iideystay oo wax badan ka helay. dadku waxay leeyihiin Nasriiney adigu jiimiista tahay, muruqo iyo neegar miga sugaysiin way soo socotaa yaa ha sugi weynina. laakiin dadku waxay leeyihiin Nasriiney jiimiista tahay, intaasoo sana jiim ku jirtaa. dad badan baa magaalada soo saartay soo caawisay, dad badan baa miisaanka ka dhintay. marka qaar ku dhex jiridda shaqooyinka ama waxyaabaha qofka gaarka u ah waxay siiyaan waaye aragnimo iyo khibrad hor leh oo qofka uu ku horumarin karo noloshiisa ee siiyaan. sax waaye, runtiina waaye. dhowr mar iga codsateen inaan muuqaalo idin soo duubo oo talooyin ku saabsan sida miisaanka loo dhimo ku aadan. waa idinka aqbalay, waana idin sheega, waana filaa inaad wax badan ka faa'iideysanaysaan. runtiina waaye, dhowr sana ku guda jiraa. alxamdulilah alshukrilah marka aan galayay miisaan badan oo aan isleeyahay maanta qof overweight ayaa tahay ama xadkii loogu talagelay miisaankiisa ka baxsanaa ahayd maysan jirin. laakiin the aimka ama ujeedada waxay ahayd in aan dareemo stress free, in aan dareemo caafimaad, in aan dareemo happy. sababtoo nolol kala waaye, caafimaad waaye, jirka u baahan. ilaahow caato oo haddii loo buubayo noqo way kuu fiican tahay. caafimaadka muhiim waaye. khibradeeda iyo waaye aragnimadeeda arrimahaas ku aadan aan idinkaga sheekeynaya. ha isdhihina Nasriin maanta jalbaabay wadataa. jalbaabka waa loo baahan yahay, muhiim waaye, gashashadiisana waa la xiiseynaa. maalinba weji ay u arki doontiin sheekadan ama xogtan ama faa'iidadan ku saabsan sida qofka miisaankiisa u dhimi karo asagoo jiim tagaayo ama asagoo guriga joogo aan idinkaga sheekeyn doonaa. fadlan haddii aad muuqaalkan daawatid waxaan jeclaan lahaa in aad talooyinka ku dhex jira aad qaadatid si wax badan noloshaada iska kaa bedesho. wallaahi bilaahi tallaahi waa saddexda magac ilaahi waa huba in wax badan aad ka faa'iidi doontid. waa idin bilaabaya. tusaale oo kale waxaad tahay qof miisaankiisa uu overweight yahay oo loogu talagalay body mass indexka marka lagu cabirayo cufka qofka ama miisaankiisa. qof ka weyn ayaa tahay. formula ama qaacidada loogu talagalay in lagu cabiro qof ka weyn aad tahay. tusaale kale waxaa rabtaa inaad jiim aadid oo aad miisaankaas iska dhintid. talo fiican aan ku siinayaa ragga iyo dumarka. marka hore waxaa ka bilaabaya dumarka, maadaama ragga ay naga activity badan yihiin ama naga xarakaad badan yihiin oo laga yaaba inay qaarkood banooni dheelaan, qaarkood ay lugeeyaan, qaarkood ay xarakaadyo kale iyo waxyaabo kaleeto oo badan ay sameeyaan inta ay nool yihiin. maadaama dumar askanaha laga yaabo inaanan lugeynayn oo aan ka baqeyno Faarax Cali Jaamac Geedi oo jidka fadhiyaan inay nafoodayaan maadaama aan ka baqeyno amaba aan isdheheyno banooni iyo wax ma dheeli kartiin dumaraatin. sababtoo waxaa jirto qaacido la dhahay dumaraad tahay wax ma sameyn kartid, banooni ma dheeli kartid oo maskaxda qofka ah laga dhaadhiciyay. alxamdulilah dumaraan nahay. ragga qaar xataa oo anta feministayaasha ama dumar ka soo horjeeda waxay leeyihiin konton leeyahay. konton leey adeer ma ahan maskaxdeeda inay konton tahay ama aqligay konton uu yahay. laakiin waxay tahay responsibility iyo waajibka iyo mas'uuliyadda adiga ku saarana ka badan tan aniga isaaran. waa taas sababta loo yiri konton. isliin maskaxda mangaab qofkaas ka yahay ama dumarku ma dhameystirna. marka dumarka wax kasta oo ragga qabto waa sameyn kartaan. believe me, wax kasta oo ragga sameeyaan waa qaban kartaan. maskaxdaada iyo niyadaada u dir. dumar aad tahay xalaa leedahay oo lagugu talagalay diiniyan, haddana waxyaabaha qaar waa sameyn kartaa. dumar badan oo banooni dheeli way jirtaa. haddii uu gurigaaga ku xiran yahay ama garoonka ku dheelayso ku xiran you can waa sameyn kartaa, waa awoodi kartaa, waa dheeli kartaa. wax kaa reebaya ma jirto.
marka dumarka tusaale kale waa cayilan tahay simple waxaa samayn kartaa cuntada controleysa balance diet waxa la dhahaa jirto isku dheelatiranka cuntada aa la dhahaa cuntadaada waa controleysa waa hubinaysaa xarakaadna waa ku dareysaa for example waa cayilan tahay ragaa tahay ama dumaraa tahay waxaa sameynaysaa waaga markuu bariyo subaxii waa soo kacaysaa inkastoo laisku haysto la dhahayo dadka qaar gaas ay ku kicinayaan dadka qaar ma fiicno dhakhaatiirta qaar ay ka digayaan laakiin subaxii markaa soo kacda lisaydii hore oo aa cadaysatid rumaysatid waxaa sameynaysaa waxaa soo qaadaysaa bakeeri dabadhuub ama bakeeriyada caadiga shaaha lagu cabo way fiicnaan lahayd inaan bakeeriga meeshaan idiin soo saarsaa u aragtaan laakiin dhib ma lahan waa idin tusi karaa muuqaalo kalaa idinku tusi karaa bakeerigaasa soo qaadaysaa biyo kululaa ku shubaysaa sanjibiilka qoyan ama sanjibiilkan caadiga ah oo la shiiday waxaa sameynaysaa wax yaraa ku dareysaa haddii kan la shiido uu yahay waa shaandheynaysaa waxaa gelinaysaa miiraha si uu nadiif kugu noqdo haddii kan qoyan uu yahay asigaa qasanba oo qashin kuma jiro kadib waxaa sameynaysaa waxaa ku dareysaa jeex liin ah waxaa cabaysaa early morning ama alseydii hore cabaysaa inta aadan cuntada cunin cabaysaa markaa cabtid ugu yaraan 2 bakeeri dabadhuub ama 2 bakeeri ka cabaysaa markaa ka cabtid haddii aad fursad haysatid it's okay way fiican tahay waxaa sameynaysaa lug aadaysaa 30 daqiiqo meesha aad joogtid ilaa email kale oo 30 daqiiqo ku gaari kartid ama 1 saac u lugeyn kartid aad tagaysaa waliba markaa soconaysid si oo u soconaysa cagajiid iyo iska laafiyo maahan socod adiga oo la meel joogo inaa meel u degdegaysa adiga oo degdegaya camal aa u soconaysaa waa furaysaa lugaha socodka waa boobsiinaysaa marka qaar socodka waa boobsiinaysaa meel oo cidlaha hadaa aragto wax yar jag rugucleynaa ku daraysa socodkaas ma fahantay ilaa aad ka gaaraysid meel fiican si fiican aa u soconaysaa 30 daqiiqo maalin kasto aa soconaysaa 30ka hadaa waqti haysatid 1 saac ka dhiganaysaa oo 60 daqiiqo aa ka dhiganaysaa every single morning 30 daqiiqo ama 1 saac oo socod aa sameynaysaa oo waliba socod furfuran ah oo socod oo inaa meel u socotid markaa socodkaas ka imaatid waa nasanaysaa waa qaboobsanaysaa 1 saac ama 2 saac socodkaas kadib waxaa sameynaysaa waa qabaysanaysaa waxaa cunaysaa quraac waxaa soo qaadaysaa 2 xabo canjeero ah carbohydrate waaye canjeerada maadaama cajiin iyo bur isku daray ay tahay 2 xabo canjeero ama 1 xabo rooti ah soo qaadaysaa ilaa waa u baahan tahay carbohydrate then waxaa soo qaadaysaa kis yar ama biyaatiga oo shaaha bakeeriga la saarayo biyaatiga ama baaquli yar ama wax yar oo weel ah koosto kusoo shubanaysaa koostadaas 2 xabo canjeelada ah wiila iska tahay waxaa laga yaabaa 2 xabo inay kugu filan 3 xabo iska cunaysaa 3 xabo canjeerada ah iyo koostadaada yarta ah isku darsanaysaa 1 xabo moos ansalaata jajaranaysaa jug isku siinaysaa intaas isku deynay markaa isku deysid shaaha cabaysid bilaa sokor ka dhigaysaa wax sokor laan sokor dhan ku dareysid 2 maalin ugu horeysa way ku dhibay laakiin sokor meel dheer ka dhigaysaa koobkaaga shaah sokor laanta ku cabaysaa xoogaba iska joogjoogaysaa xarakaad iyo meelaha shaqadaada iyo gurigaaga iyo waxaaga samaysan kartaa samaysanaysaa kadibna waxaa sameynaysaa xilliga qadada iyo quraacda inta u dhaxeyso af bilow wax la jira cunaysaa حبة تفاحة هل حبة موسى هل حبة ليمون أورنج هدا هلي كرتيد قبل يرو هدا هلي كرتيد بقان أو كله دك واجرنا ساعة سبيرة دعكس سنة ساعة تك وعنا ساعة قضاء القراءة أنتوا دحسوا وقت قضاء على جاري قضاء هدو إلى إن مع قمدي أسوق عضنا ساعة قمدي قلتومي sidii bariisko kala u dalacaysa wax yar oo saliid iyo waxba ku dardaraysa gabar hadaa taa waa garanaysa wiil hadaa taan laga yaabo inaa kasi sidaadan kasayn walaasha taqaan ama hooyada ama samaha qof guri ku joogo qamadiga sirka ah xeerta calooshan uu jaraya caafimaadna waa calooshan uu socodsiina qamadiga sirka bariis ahaan u karsanaysa dhacan salaatadaadii waxaaga ku cunaysa okay hadii oo qamadigaas dheesoo ku dhibaya waxa soo qaadaysa gabal digaaga oo aan la shiilin oo la umuteeyay ama waxa soo qaadanaysa gabal malaay la umuteeyay ama hilib oo aan saliid la marin oo biyo kaliya lagu kariyay waxa soo qaadanaysa aan salaato tiro badan waxa soo qaadanaysa koosto marka inta soo qaadatid waxa sameynaysa wax yar oo hal qaando oo yar oo saan oo bariis oo fardhis ama wax yar baas shan xab fardhis ku darsanaysa sababtoo waa carbohydrate waa protein waa vitamin waa fat
intaas isku darsanaysaa marka isku darsatid booska qadada gelinaysaa waxa ku dhameystiranaysaa oo ku juundaareynaysaa babaay cambiga qariyar oo isku jijira hadaa heli kartid waa isku juundaareynay dhac waa joogtaa xilliga qadada ahayd waa qadiisay rag iyo dumar waa filaan inaa si fiican ula socotiin muuqaalkan waa qadiisay qadadaas markaa cuntay cashada ku soo hartay cashada waa wax ugu badan ee qofka miisaanka ku kordhiyo haddana hadduu jirka baahdo iyada naftirkeeda waa caqabad kale baahida waa lagu cayilaa dad badan dhahay baahisa lagu cayilaa nasriin adiga mana waa la rabtaa baahida waxa loogu cayilaa jirkan marka oo ku dhaco dheefshiidka cuntada qaarna wasaqaa laga dhigaa qaarna jidka loo keediyaa oo sugar oo sokor oo kaleeto oo kugu noqonaya sababtoo ah sokorta waxaa loo bedelaa fat dadka biology-ga bartay ama waxyaabahaas la xiriira caafimaadka bartaa fahmi karaan faatkan waxaa loo bedelaa sugar sokorta aan markoo jirka oo dheefshiidka ku dhaco kadib way kuu keedinaya hadhow energy-ga isticmaalaysa markaa baahatid kaas waaye markaa baahatid wax badan cuntada xataa waa ka cunaysaa sababtoo geedka marka la waraabin jiray oo biyaha laga daa hadii biyo lagu shubo isla markii waa cabaad jidkaaga saas waa marka cashada hadii aad iska dhaafi hadaa qada fiican cuntid automatically casho ma baahnid even though cashaa u baahatay waxaa sameynaysaa maqribadii oo kale intuunan gab oo si fiican habeen loo gaarin waxaa sameynaysaa hal xabo ukun biyo lagu kariyaa soo qabsanaysaa ama laba xabo ukun oo biyo lagu kariyay waxaa sameynaysaa gabal rootiyar soo qabsanaysaa waa jeexay waa dhaxgelinaya aan salaataa ku darsanay waa ku casheynay ama waxaa sameynaysaa labadaas xabo ukunta cunaysaa habeen waa ku casheynaysaa wax kale isticmaalaysa habeen ukunta waa u goonaysaa wax yar digir guduudan oo sokor badan saliid aan lagu darin ku casheynaysaa oo wax yar oo calooshaada waa u goonaysaa wax kaleeto sidaas sameynaysaa marka sidaas sameysid waxa helaysaa faa'iido badan waxa cunaysaa 3 saac 4 saac ka hor intaadan sariirta aadin waliga allaha adoo dhirigtay sariir ha isku aadin for example yara ku siinaya tusaale yar habeenkii waa casheys waa seexatay subaxdii waa soo kacday baahid zaa'id ku hay sababta misweedis dheefshiidkaaga si fiican u shaqeeyay midda labaad ugu caloosha aad xoogaa way soo bararsantahay way soo kuusan tahay haddana waa balbalaya beerkaaga baahi ku hayso sababtoo ah jirkaaga habeenkii inuu dheefshiid 3 saac kadib cuntada waa la dheefshiidaa dad anaga wax barto iskool iyo jaamacada aadaanahay idinkan laga yaabay sidaas iskaba in ay cilmi badantiin xataa marka waxa dhacay saas marka cuntadaada u kontrooshid oo cuntadaas ay yeeshid oo aad sokorta iska deysid saliidda tirada badan iska deysid cabitaanka la shiiday oo la qasa iska deysid biyo cad ku bedelo baraf meel dheer ku darso shaaha sokor la'aan ka dhigo cadeys yar oo caano geel ah fax ku siiso hadii kale rinjigiisa ku cab waxaan filayaa in wallahi billahi waa saddexda magac ilaahay waa la tijaabi dadka tijaabada lagu sameeyay waa marqaati nool wax badan baa miisaankooda isaga bedelay maanta haday arkaan wallahi salaanay ii saaran way salaamaan aadayna igu maad celiyaan the second one talooyinka guud waxa waaye hadii oo adiga aad gym aadaynin waay hadaa gym aadaysidna cuntada asaas u control gymka tag gymka markaa tagtidna track milki geedka orodka full adiga si fiican ugu carar 10 daqiiqo 15 daqiiqo 20 daqiiqo kadib biraha yar iyo xarakaadka samee hadaa gabar tahay iyo dhaqdhaqaaqyada kale aerobiga la ama zimba la dheelaa simbaha geeska soo gal habeenkii markaa gymka ka imaatid iska ilaali cuntada culus tufaax iyo fruits iyo somehow wax noocaas isticmaal wiil hadii aad tahay isku day inaad banooniga dheeshid isbuuci 3 mar 4 mar inaad banooni dheeshid hadii aad shaqeynaysidna isku day in shaqadaada hadii fadhi badan tahay labadii saac halkii saac ba xafiiska ku dhex socotid oo kale shaqada markaa ka imaatay gurigaaga u soo lugaysid isku day hadaadan xarakaad kale sameeynin wiilalaadkiin waxa jeceshiin six pack neegar inaad iska dhigtiin okay waa qurux badan tahay bodigaaga ku qurux badnaanayo waa sameyn kartiin muuqaal kalena waa idin soo duubi doonaa arintaas way dheer tahay ma dhawo oo sheekooyinkaas looga sheekeenay marka waxa idinka codsanayaa simple cuntada control si fudud cuntadaada control xarakaad samee jimka faa'iidooyin badan oo leeyahay miisaanka aska dhintid faa'iidooyin badan fudeeda dareemaysa caafimaadka dareemaysa jirkaagu ku qurux badnaana waa aragteen dadka reer galbeedka westernka cadaanka waa wallahi 80 jir waxa u egtaa 15 jir ama waa 70 jir wuxuu u egyahay 20 jir ma isweydiisay sababta human being waa bini'aadin waa adna bini'aadina tahay waxa ku kala duwan tihiin dhalashada iyo diimaha iyo wax la kala aaminsan yahay ka soo xarakaadka iyo dadaalada la sameeyay aniga mar aaday Afrikada dad badan oo cadaan ah ay aragnay oo meelo badan ku kulan saaxiibana wallahi hooyo waaye
hooyo ma aha xataa garanda mother waay ayeeyo ee maroosaa subaxii way kula soo kacay meesha jiimka kula soo galay way kula jiimeynoosaa cuntada dietkeeda marka misku meel fadhiisatiin si fiican u fiicanta cunto fiican cunoosaa marka waa sheekaysanay marka waxay dhahay is the health caafimaad waaye nafta u baahan jirka u baahan marka da'da number waxa lahaa marka dadkaas waxa waaye way naga dadaal badan yihiin dadaalkana waa sii wadana Soomaali waxay dhahdaa lama qurux badno qabiis ka badso marka dadaalka badi aad iyo aad u mahadsan fadlan hadii aad ka heshay sheekadan ama xogtan subscribe saar ha iga xishoonin ha isdihin ama dhibaato tahay waxa sameynaysaa fadlan barta commentiga lagu qoro igu soo qor iweydii wax kasto u baahan tahay waan ka saacidayaa waana igu balan in wax badan iska ka bedelo aad u mahadsantiin you guys fadlan share gareeya muuqaalkan si asxaabta kale uga faa'iideysato adigana waa mahadsantahay subscribe niisaar hadii aad channelkayga ku cusub tahay bye bye inta aan ku kulmi doono muuqaalkan iyo mid kale oo ka xiiso badan